الحمد لله إلهي ما هدي سوي هدان مركل هوذا كوكولوني أنغو وناق اسكو شيغينا حمدن اسك ريبين إلهي سبحانه وتعالى نغا كوي كو انتفاع وخي لو شيغو dhamaanteeba waxa noo socotay silsilo aan kaga hadlaynay al-kabaa'ir min ad-dunub dunubta ku waaweyn aan ka hadlaynay oo qayb fara badan aan ka soo hadalnay qaybta ugu dambeysay oo maanta xalqada labaad aan ka sameeyay ay tahay az-zina ayna kamid tahay waxyaabaha kabaa'irta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka digay qofka muslimka ahna la doonaya markasta inuu xaaraanta uu ka fogaado zinada inuu ku dhaco oo waxaan zinada waxa la yiraahaa laba qofood oo xaaraan iska ah oo isku ah oo aan Ilaahay isku banaynin oo nikaax xalaal ka dhaxaynin inay gogol wada tagaan ay galmood ay sameeyaan taas ayaa zina la yiraahaa waa zinada weyn laakiin magaca zinada way fara badan yahay oo qofka insha ayuu ku zinaystaas hor u sheegnay oo xalaqad hore aan ku sheegnay carabka ayaa zinaysanayo bani'aadamka zina ayuu ku dhacaya walidaalika waxaan niri si zinada looga digo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadu noogu reebay waxay wala taqrabu zina u dhawaanina oo muqaddimaadkeeda iyo waxyaabaha hordhac u ah saas daraadeed waxyaabo fara badan ayaa zina si loo ilaaliyo maxaa yeelay waa faaxisha inuu faaxishatan Ilaahay uu ku tilmaamay iyo wada xun inay tahay sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala saas daraadeed waxa loo sameeyay protect ama hordhac ayaa la sameeyay oo dadka inay ku dhicin waxyaabaha oo hordhac looga sameeyay waxa kamid ah in qofka muslimka la amray inuu indhaha daboosho xumada ka daboosho وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلهي سبحانه وتعالى ليه إنها حارانتك الدبوشة أو ويحفظوا فروجهم أيضا إلى ليان فرج جوذا ليس رعسي وحكوا صهري سيدوك القبلها وحاليه حارانت محيا حارانت أصل كذا وحكتي ماذا لو قفك أد حاران الأحمر يسمر كرواس أركيسان أركتي ده سأيو حلي مركين ده حارانت لقد دبولو معي هدات كده بوليس نفط إنده راعيسا xaaraantii haminaysa markii inay ku dhacdo waxaan yiri guurka asbaabaha loo baneeyay waxay ahayd Ilaahay cifa oo umada muuminiinta la doonay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta markuu sifeenay qad aflaha almu'minuun Ilaahay wuxuu leeyahay dadka muuminiinta ayaa aflahay maxay sifaadka ilayhiin maxay kuwaas muuminiinta koo wuxuu ka bilaabay tiirka islaamka alladina hum fi salatihim qashi'un kuwa salaadooda ku qashuucay markuu soo dariyay oo kuwa zakada bixinay wuxuu leeyahay walladina hum li furujihim xaafidun idan illa ala azwajihim wuxuu dadka muuminiinta dhabta waxa kamid ah dadka farjigooda ilaaliyay xaraan ka ilaaliyay ayay kamid yihiin kuwa iflaaxay kuwa guuleystay muuminiinta guuleystay waxa sifaadkooda kamid ah farjigooda ay xaraan ka ilaaliyeen illa ala azwajihim xaasaskooda mooyee haddaad ilaahay xaaskaaga ku baneeyay xalaal ku tahay إلا ولذلك آية وحكسو قبي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلهي ساسول لي نكي قداش حاسس كيس وحا اهين قدالك وحكا دونه أو قفا حاسس كيس اهين أما أصو حاسس كعدد كلو تلقى لما يستحاران كلا آذا أما نين قفا أن ولي قرس إنه حاران كدعا إلهي وحول لي فأولئك هم العادون وكواس واحد قدبين بس إسلام كحو إلى لي إنه فاحشة فافت والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم إلهي سبحانه وتعالى قذف أيال حارن تمي قذفكم حويه قذفكم حويه إن عرب كا ضد أكو أركن زنو أما يقول حاران كل أركن إن ترى زانيين وي ولذلك ضد كأسكجر مركي أركان جبرتين قاون مركي أركان حكولين زاني هدي يقولوا جيدان زاني دين عواقته تنتهي وحاران تهد أي فيدي لكن هدي يقولوا جيدان زنا وينيت أما معصية صومالي معصية ترى معصية أي شيء كان oo zinada uu yaqaan kariye inkastoo macsida Ilaahay caasiya lagu caasiyay dimbi kastoo laga galay tahay haddana waxaad arkaysaa zinada waxa loo sameeyay marka xeyndaab xad ayaa ka asaasmayo xadkaas oo ah labada qof ay xaraan iskugu tagto oo ayagu isqabin galmood sameeya waxa leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo cadeeyay in taxad lagu oogayo haday guur hore u soo mareen waxa leeyahay u soo marin waxa leeyahay azaniyatu wazani Ilaahay wuxuu leeyahay fajliduhum 100 jalda وحليه بقول قرباش يليهين ما دام يقول حلال أركن وولدت كهرتوا ذلك عيبينها هدفك معها إن الدلو ولذلك يحيي لأن حدوده وأهت بقول كرباش ما خوفك إن اللي لجيد إن قول محيالي تتبضن عليه دون أن بقول كرباش وحي قريب يسمع لكن حال الجيدة إن لا عيبي تذكر أركان حي خوفك الزنا سمينا دتكو كرومنا يا أسجع دتكو هرتوا زنمكم سمينا مركا هدي وحياه أن مركا أفر مركاتي أو أفر ملك كلتي من الرواية أركتو ولا أتكي محاد وحالة دي
qof kasta inuu qofku khilaaf ka dhexay inuu yidhaha heblahi waa zinaysatay gabadhii guri nin ka soo baxays la arka in la yidhaha waa iska zinaysatay waxaas o dhan ma aha ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahy marka mu'miniinta qadafaa loo amray marka ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay kuwaas jecel oo ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu kuwa ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta kuwa faaxishada ka faafinayo xadiiska ifkii ahayd sabab nuzuulkeedii laakiin haddana waa caam oo min asmaa lmawsuul cumuum wey waladiina ina aladiina markii lahay mawsuulka mar kasta waa cumuum faa'iideya alcibratu bicumuumi lafdi ilaa bikhusuus sabay yirahan usuuliinta saas daraaddeed ayaa waxaa laleeyahay nin kastoo nin muumceeba ka sheega waxa la yidhi hadduu caddayn keenin waxaa leeyahy 80 karbaash hala karbaasho fajruhum 80 jalda au taleegana idan waxaasoo xeendaab ah waxaasoo xuduud maxaa loo sameeyey maxaa yeelay zinada waxay leedahay faqriya leedahay kow walidaalika dadka zunaada ah oo xaaraanta iyo nimanka naagaha habeenka hoteelka iska jiifanayo isa seexanayo xaaraanta samaynayo faqri kama baxaan weligood arag faqri ma ka baxayaan maxaa dhacay xaaraantaasi ku jiraan lacag kastoo soo gasho waxaa laga yaabaa fanaan waa leeyahay waxaa leeyahay wuxuu sameeya lacagtiis intay ka baxda waana faqri waa kulligood waxay haastaa male meelahay barbaryaan maxaa dhacay faaxishada faqriya leedahay zinada khaasatan waxay leedahay walidaalika waxaan usoo sheegnay nebiga calayhi salatu salam waxaa ka sugnaaday qofka muzaaniga iimaanka waa laga rafacaya markuu zinada u galayo laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min uu yiri nebiga calayhi salatu wasalaam ninka markuu zinada ku dhacayo iimaanba ma laha iimaanka laga qaada ka waran maxay iimaanka ilahi subxana wataala hadii laga qaado waa dhibaato saas daraaddeed waxaan leenaha marka faaxishadaas dadka ummadani mujtamacnay baabi'in kartaa fardi maku ekaanayso arrinteeda qof keliya hadday ahaleed qofka oo siniinta ku dhaca kuwaas hala iska cadaab laakiin ummadda dhan ayaa hadday ku faafto faaxishada ay dhib leedahay saas daraaddeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadka hortooda ha lagu karbaasho hadday hore nikax usoo mareenna waxaa le dhagaxa lagu dil mujtamaca la dhaafsiiyo maxaa dhacay mujtamaci waxay keeni karta taqliidga islaan la qabo hadday nin kale u dhuumato ilmihii nin kale kasoo dhasho oo ninkan ilmihii korinayo maxaa dhici kara bulshad wada faasida oo zunaad ah oo hadhow ilahayba ka baqaynin oo laga yaabo inay xataa dad diinta ka baxa ay dhalaanba maxaa yeele wixii xaaraanta mushkileeda waxay leedahay baraka ma laha wixii maal haddii xaaraan lagu keeno baraka ma laha marka guri dhan walidaalika xaaraanta waa kala daranta zinada nabiga calayhi salatu wasalaam akbar danaa waxaa ka tilmaamay ninka jiiraankiisa ka zinaysto islaan jiiraankiisa ah ama naag la qaba ka zinaysto kaasaa ugu daran ayadana naagta dhagaxa ku waajibaa haddii wiil yar oo weli guursuma 100 garbaash islaamka marka ma rabo islaamka inuu dad dilo islaamka maaha laba qof la iska dilo islaamka nafta waa ilaaliya ilahi subxana watacaala aayadaha quraanka wuxuu leeyahay waman axyaaha fakaanama axya naasa jamiican ninka hal naf nooleeya asoo nool maxaa leeyahay marka qofka haloo dilo laleeyahay bulshada haloo dhaafsiiyo waxaa loo leeyahay fasaadka ka ratamaya ilmo oo wada garac ah hadday wada dhashaan islaan gogol dheef sameys kan sameeyey kan haddii isku tago waxaa dhan bulshadana hal abeys walidaalika qoomka ilaahi subxaana watacaala ay faaxisho ilahi wuxuu leeyahay aayadda quraanka waxaa ilahay kusoo aroogtay ilaahay hadduu qaryo la doono inuu halaago amarna mutrafiifa fasqu fiiha ilaahay hadduu rabo inuu qaryo halaago waxaa leeyahay dadkooda oo mutrafiinta waa zunaada iyo cusaada ayuu ilaahay subxana watacaala ku ibtileeyaa markaas kabacda qaryada la halaaga maxaa dheh hadday faaxishada ay fido qaryada halaageeda imaanaya saas daraaddeed ayaa waxaa ka mid ahaa nabiga xadiiskiisa calayhi salatu wasalaam habeen uu jiiftay nabiga caadadiis waxaa jirtay wuxuu dhihi jiray subaxdii markuu salaata fajr tukado yaa riyooday riyood dadka asxaabta inuu fasir rabay laakiin maanta asaa wuxuu yidhi ataanii aati aniga xalay waxaa yimid uu yidhi anigoo jiif anaa riyooday nabiga calayhi salam ru'ya ambiyana waa xaq mar kasta ru'yada ambiyada waxyi weeye oo ilahay usoo waxyooday maaha dadka kale ruyadooda kale waxay walidaag nabi ibraahim markuu wiilkiisa ku yidhi ismaaciil waxaan ku riyooday inaan ku qalo midiyo subaxdii markuu qaatay midiyo soo qaatay inuu qalo wiilka maxay ruyadiis waa run waa inuu fuliyo waxay loo soo waxyoodo wey ambiyada marka riyadooda nabiga wuxuu leeyahay marka xale anaaba riyooday laba nin ay yimaadeen markaas wuxuu leeyahay meel bay marsiiyeen meesha markaa weydiiyey ma hada markaa ila jibriil riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin jibriil iyo mikail ay ahaayeen ayaa riwaayada qaarkood dhahay markaasaan weydiiyo marka dambe wuxuu yidhi dad waxaa u mid uu yidhi oo nabiga calayhi salatu wasallam meel tinaar lagu shidayo alle tusayo dab ah hoos ka holcayo markaas qayla ka yeerayso ay ku yiri dowda ay yeerayo buuq ka yeerayo dabkii gubanayeen holaca hoos ka imaanaya marka holacaas markuu yimaado abaadkiisi badana walisi guba markaasaan weydiiyo man haa ula yihiin dadkan wuxuu yiri waxa waa zunaada ummatika dadka zinada ku dhacay ummadaad waa liiri saas la yiri nabiga calayhi salatu wasallam marka cadaab gaar ah nabiga la tusad aan dadka kala cadaabin bal riwaayadaha waxay sheegayaan dhii caanka urka ka soo baxo dadka zunaada ah urkiisa dadka lagu cadaaba
dad kale waxaa lagu cadaabayaa ur dad laga soo qaaday zunaad ah marka dhiigeedu carunka ka baxaaba xataa cadaab ah laftigiis dadka zunaad ah walciyaadu billah walidalika waa in la ilaaliyaa ikhwaani dowlad kasta oo dhalanaysa waa inay samaysaa dad anshax u qaabilsan maxaa yeele haddii anshax la ilaalinin oo ummad muslim aan anshaxa ilaalinin waxa weye halaagay ku socotaa annaga waxay leeyihin soomaalida halkeena laga soo galay waxay meelahana laga soo galay waa fara badan yihiin waxaa kamid a anshax xumadan kamid a waxaa kamid a gabar iyo wiil oo gaari inay iska qaataan lahaya bigniga aadayaan oo wadankii ah dadaa waxa ule xeebaha iskaaga tumanayaan habeenka iska wareegayaan maaha waa dad boolis aadaab in la sameeyo wey gaalada ma aha waxay ku diidi kartaa adaa xaqa u leedahay aniga cabsi anaga badatay waxa halkaanay ku leeyihiin halkan qaarkood dadka waxay yidhahan xataa qolada oo xaaraanta ku dhacaysa waxaa leeyihin idinkoo shati samaysan qolaan waa loo cilaaniya qof meel oo wax jidka ma istaagi karaan wadamada hadda ingiriiska aan joogno waa laga yaaba talyaaniga inay jiraan laakiin naag zaniya wadda inay istaagto laga qaado boolis aruurinayo wuxuu leeyahy xataa wadada aqaad haddaa ratid si sharci u sharciyeyso waxaaga laakiin wadada ina qaadid cudra fa walidalika cudurka aidiska hadda lagu sheegaya faaxisho wey faaxishadaas maxaa keenay zina ka timaada cudurkaas halku ka yimaada halku ka yimaada zino ka yimaada hal kale ma ah walidalika gaalada waxay leeyihin cudurkaasaa la hel maxaa dhacay hadda jaziira maalin dhaxad waxaan ka dhegeysanayay waxay leeyihin taqriir gabdhaha islaamanka uutalaha kaga dhaco kansarka kaga dhaco waxyaabaha intu badan inta la hel waxaa dadka zinada ku dhaca waayali ama dad igaa qirteen yidhi anaga meel kale nalagama soo gaarin aidiska lagu sheegaya walidalika adiga noloshaadina waa tahlugtay ummadna waa fasahaadisay ummad dhinac cudur ku riday ilaahay ciqaabtiisana haddaa xataa adduunya ka fakatid haddaa lagu arkin oo dadka ka dhuumatid ilahay intay ka gelaysa ilahay ma ka dhuuman kartaa ilahay subxana wa tacaala maalintaas wuxuu leeyahay andaqna waxay leeyihin lima shahidtum calayna jirkaaga gacantaadii afkaaga kugu markaati furayaan lima shahidtum calayna andaqa allahu alladii andaqa kula shay waxay leeyihin anaga ilahay naga hadalsiiy iyagaa kugu markaa ilahay salaada xaq hanu tusdhamaanta qadka telefoonka halow calaykum salaam waraxmatullah asaaka kula hadlaya ukhtiita weydii su-aasha telefoonka waa qaaskan rabay telefoonka markii aad casharka ka baxno soo wac halkan galasiga soo wac lagu siinaya qolo stuudiya ku siinaya jazakallah nacam dhinaca kale halo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haa sheekh su-aal baan rabay inaan ku jirto fadali weydi haa sheekh waxaa jirto meel community ayaa meel waxaa la dhahay waxaa ku baranaysaan qur-aan marka meeshii markaan tagnayna meel dhuumasho weeyaan oo waxaa loogu talagalay waalidka in programmo kale loogu sameeyo marka qur-aanka dhuumasho lagu dhigan hayo marka qof kormeera way ka shakeen ayagana gaaladii marka qof kastoo kormeeray kolba usoo diraan marka meeshii markaan tagay waxaa arka dadka le kitaabada xasay kitaabada qariya marka xoogaa waa yari walada waxaa siri amay waxay khiyaano noqonaysaa marka saas qur-aanka lagu baran hayo muxuu noqon karaa ma banaan tahay misana waa may ma banaano akhdi maya meeshaas waa in la cilaaniya haddaa la cilaanin karin halaga tago hala xero نعم هدي بارتان ويما هدي لكن مركو هر عام هيد ناس تفصيل كدغتا مال مساجد لا فراي وعلي لها كومونيتي اسكله وان اوكسوين يجن لو تكناي واي مادان ايدو لو تكناي اركان oo dadka community-da waxa muslimiin way xaqi u leeyihiin hadii community la siiyay xaqi u leeyihiin inay quraanka u akhristaan inay meel ay ku shiraan inay wax ku sameystaan maxay wadankan qofka diintiisa xur u yahay marka sheekh waxa weeyaan waxa la dhahay luuqado dhan lagu ma baran hayo ma qalad way hadii wax ay balan qaadayeen waxaas ma ku baraneen ay yireen ay ku bartaan hatta hadii ingiriis ay yireen ma ku baraneen ama Soomaali ay ku baran dimbi way iska dhaaf quraan Soomaali Carabi English wax lagu baranayo mal waalidku wax kala dhahay loogu sameeyo wacyi gelin iyo waxa marka quraanka la yiri waalidiinta ay dhan anaga quraan ku barano ma waa inay gaarsiiyaan ilaahan maadaama fiir qof heshiiska muslimku waxa la axadiga inuu fuliyo haday ku soo qaadeen waxaas ma ku baranayna hadii wax caam ku soo qaadada quraanka ku dhex dari kareen dhib malaha oo wixii caamkiisa soo galaan laakiin hadii loo xadido wax particular oo leeyahay waxaas ma ku sameey kartiin waa in axadigaas ay fuliyaan wax horba aadam quraan ahaado ma banaano fiiraha lagu sameeyo lagu ma sameeyo quraanku baa la iska go'aansan qalad way arintaas waqti insha Allah muslimka khayana ma yaqaan naam إلهي وحكوت المؤمن يوفون بالنذر بلنتي قادان إلهي وحوليه صفات كمؤمنين تدك وحكم إذا بلنتي قادان وفوليان نعم ووفوا بالأحد آيات كلا أحد لنا كلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخة ربا شيخة أساق كل هذا لايف شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخة وحا ربينا سؤال كويديو هاي تيفيك اسكدها تلفونك يقلا صعب waxa weeye sheekhow arrinkani muddaan la foolanaya marka caawan ku weydiinaya haye waxa weeye sheekhow telefishinada Soomaalidu waa badan yihiin waa gart hal telefishin oo salaada laga oogo kama hayno oo salaada adinka laga sheego marka dhibtaasaan qabnaa lacag waa la gurayaa wax waa loo kaalmaynayaa khayrkii ka badnaaba meelaan kala socono ma hayno
waa runta arrintaas waa lagu baraarujinaya inaad intaa ku baraarujiso khayr allaha ku siiyo sheekha waan dhibanahay islamic channel mar wuu naga halaabaa mar waan helnaa marka waa arrintaas waa maamulku waa gaarsiinaynaa cidda kale oo na maqlayso tviyada aan ilaahay kaga cabsada dadkani daawanaya dad muslimiin ka cabsoodaan ilaahay ha u noqdaan waan u baahannahay eedaanka in lagu baraarujiyo baaraka allahu fiikum insha allah assalaamu calaykum wax kaloo badan oo khayrana waad fashaan ilaahay khayr ku siiyo insha allah marka salaam sheekhow baaraka allahu fiik insha allah waana maqlayaan wixii kale maqlayna ilaahay ha kaga cabsaan dadka ni daawana dad muslimiin wey waxaad u daynaysaan waxyaabihii baahida u qaban waxaa kamid ah inay maqlaan aadaankaas guriga ka dhex yeerayo oo la maqlaayo laftigeeda waa faa'iido kale marka ajirkaasna idinkoo nii socda qola tv u socda marka ajirka ha ka qaadina addaalu cala alkhayri ka faacilihi marka arrintaas waa ku baraarujinaya dhinaca kale halow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال كويدي ربا. تفضل أخي. شيخ أدي أن إلى هذا أدي أن إلى درتي سنة بحضم خروج في سبيل التبليغ أنا رأى لبدا والد كميدو إلى راعي ميسد ورد شقي ودكان شقي أم بحولا راعي ما كمان والدك أضيع عيسى. maxaa yeelay fardi kifaaya weeye fardi kifaayahana iyo fardi waxaa jira fardi cayn iyo waxaa fardi kifaaya lahay haddii tasaaxun isku sameeyaan labada fardi inaa waalidka oo fardi caynkuga adiga inaa adeecdid ah iyo dacwo in la guto oo fardi kifaaya ah oo dad kale qaabanaya haddii fardi kifaaya macnaha waxaa weye dembi waxaa kaa ridayo dad tabliiq u bax lama waynin dad badana baxa oo ilaahay ajra ka siiyo oo dadaala marka dadkaasaa kaa qaadanayo marka haddii aad jamcisidni oo hooyo iyo waalid hoosha u qabanaysa iyo tabliiq aad jamcisidni wax fiican waay laakiin haddii labadaas amar iska hor yimaadaan kan fardi kifaayaha laga tegaya kan fardi caynka la waa sidii ninkii nabiga calayhi salaatu salaam uu yimid oo yiri iktatabtu fi jihaad isku qorul fi sabiilillahi jihaadka oo ilaahay isku qoro uu yiri wuxuu yiri awaaladayka xay hooyada iyo aabbaha ma nool yihiin ha fa fiihim wuxuu yiri mid kale wuxuu ahaa kaas maaha weli waxaa jira mid dhahay aniga jihaad isku qoray islaantaydan xaji u socotaa uu yiri islaantaydan xaji aadaysaa aniga jihaadka ku qoranahay markaas wuxuu yiri naag islaantaada la xaji maxaa dhacay jihaadka fardi kifaaya waa dad kale gudanaya adiga kuma baaqanayo jihaadka oo hadda ka harta tabliiq dad badan howsha fulinayo laakiin haddii aad islaantaada maxram aad dirtid arrintaas waxay noqonaysaa in fardi cayn adiga xaq ay kugu leed islaantaadi aad dayacday marka culamada qaar xadiiskaas waxay u fahmeen inay tahay jihaad weyn ayaaba laga tagay markaasaa layiri maxram dhahay maxram la-aan ma xaj loo aadaya isla intaasaaba jihaadka loo nebiga u diiday marka waxaa ka maqan inay tasaaxum isku sameeya laba waajib fardi cayni iyo waajib cayni iyo waajib kifaa'i ayaa fardi isku sameeyey macnaheeda ma aha in ay jihaadka iyo cimrada gabadha islaanta la raacin oo jihaadka uu fadli yar yahay ma aha nacam dhinaca kale halow qofkaas waa ka go-aan filaya dhinaca kale halow qofkaasna waa ka go-aan filaya halow nacam halow السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو اسمه على الشيخ وسؤال أنا كويدي. تفضل ويدي. شيخ من وجوبنا ولاد كذا. marka wuu i furay mar dalqad ugu furay waa gartay mar labaad dalqad kale ugu furay warqad ugu soo qoray labada dalqadood waa gartay kadib rajactu ilaa mar 8 bil laga joogo waa gartay anigu waan ka diiday waa gartay marqaatiyalkii ii soo diray waan ka diiday waan isdirina xoogaa way aflagaadiyay aniga iyo hooyada isku keen caay waqti arrintaas furiin kul ku dalba laakiin arrinta rajactada gabadha ma diidi karto wax adiga oo lagu weydinayo oo adiga kugu xiran maaha asagana waxaa leeyahay qof aan ku dhaqmaynin rajactina iska soo tiraahid maaha ragga qaarkood dumarkay ku xumeeyaan cadadi ay ku sameeyaan waa dhibaan ilaahay ka jahsaynaya hadduu saas kuu soo ceshtay hadduu laakiin ceshashada xadeeda ku ceshtay adiga shardi maaha maxay intaad ku jirto 8 maalmood tiri maadaama uu hal dalqa oo weli u harsan tahay oo hadda rajactu ku yiri markoo laba ku furay rajactada lambar ay 8 maalmo u dhaxayso ciidada ka dhamaanin waxa weeye adiga wax laga weydinayo malaha haddaa saan kala dhimataan waa isdhexlaysaa hadduu dhintan waa dhexlay haddaa dhimatin maalkaaga u dhexlaa nolosha weli ma dhamaanin oo guurkaas waxaa la yidhaha guur rajci waay waa talaaq rajci la yidhaha laakiin haddii ciddada kaa dhammaan lahayd oo saddex dhiig hadday tahay xayd daata qof dhiig tirsata daata dhiig ku dhaco saddex xayd kabacdi rajacta ku dhaco markaas ma laga yeelayo adaa lagu warsana markaas maxaa nikaaxa loo baahan yahay laakiin inta aad ku jirto muddadaas
afkiisa le ka xigta keliya inuu rajactu u kaa yidhi laakiin waxaa shardi inuu kuu soo sheegay adi waxaa tiri waa ka iisoo sheegay markaatiyaal uu iisoo sheegay ninkaas waa odagaagi haddaa furin kale ka dalbanaysid adiga ku taallaa asbaabteedii laakiin weli waa ku qabyaa ogow nacam dhinaca kale halo halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفيعية. الحمد لله. الحمد لله. هاي. الشيقة أنت بينا الهدل. أساك ولا هدلاي. هاي. تي في كده تلفونك يقل صعب. هاي. واكو سلام الشيقة بارك الله فيك. وأنا كوم هدعلنا يا أذية يونيفرسال تلفزيون وعارف سؤال إنا كويدية سؤال دراد وحكي هاد ليسي صلاة الجنازة. واقرت. صلاة الجنازة وفهمي الركعات وجوه الرئيس الله أكبر وجوه الرئيس وتأثير فاتحة آخر الرئيس. نعم. ركعات اللي بعدنا وعود عينيسا ملكة. نبي صلينا عليه الصلاة والسلام. صلينا وعرب أن فهمه مركو السلام نقصرايو هل كدينا مديك مياه مش دينا عبد ذهذا مسألة وخلاف لابد وصارت بعض العلماء وحيلي هل سلام أصل كسلام تبع حتى تنسلاده تنواجب كي وتنكوذ مديك توي تلابات وصلنا مركا سيدا حتى تنسلاده قفك هل دينا مديك توي له سلاده وكبحي كان كلا وصلنا وأجر وكيلاي مركا تن كوادنا ولا بحكي كرا سلاده لبها ذات رهن لا بأس دبلا نعم بس مركز ما هالسنتين بارك الله فيك دينا عكل هلو هلو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ غرب. أساك الله الله يا أخي. شيخ السلام عليكم. بارك الله فيك عليكم السلام. سود أفريقيا. واقرت. وسياسة كويدينا شيخ وحيتا يونيفرسال يا دعوة كنا برنامج وحين سود اللي قوتو شيكا. واقرت. وهوين وقاقاون بيسود يا تي في كنا حافر سنة يوم الصوماليات بلايين وعقارة أدوب كبار صحوي. حبلنا الصوماليات قاقاون ومدحود قاقاون هاي وحيكو حلا يعني معصيب وبليين وقري والبلغة دارا وحافر سنة يعني حين هاوين كلا مرقة ما عروض داون هاي. واقرت. لكن لقب الله جعل صومو ونكسرين يرفرس اللي يراد وحالا وسي دين يشاب بل إنسان ومده وسي دينينا بل كثير شو وحا وسي دين يسا ومده كعوبية موح ونكسن با موحهم با. بارك الله فيك. جزاك الله خير أخي. نعم أخي waxaan filaya arrintaas xalaqadan iyo xalaqada horeysaba waa maanta ta ka hadalnay iyo tan kaleba oo qamiista hore haddaad dhegaysatid waa ka hadalnay dadka ay qusayso arrintaas waxaan filaya inay maqlayaan ha ama universal ha aadaan ama ha aadaan dadka riwaayadda dhigaya laftagoodba ilahay waxaan ugu rajaynaya ilahay inuu xaqa tuso dhammaantood anaga iigaba ilahay xaqana tuso hanuunkana tuso insha allah dhinaca kale halow 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا رأينا سؤال ويدي. أسألك كل هالله. شيخ. ها. شيخ سؤال بانك ويدينا يا شيخ يقرأ لي هو. هاي. ويدي. waxaan ku yidhi walaalow waxaan ku weydiinayaa guri aanu lahaynba caruur agoon aabahood intay guri ay lahaayeen aabahood iibsaday waagu noola baa dad ku qabsaday oo xoog kaga qaaday oo iska haystaa maxkamad baanu furannay maxkamaddii haddaanu gallay iyadoo iska muuqata oo xaqa iyagii sidii u cadyahay oo uu ninkii xaakimka ahaa qirayo inaan anagu guriga iyaga iibsanay ninkii naagu qabi jiray baa tidhi anaa lahaa markaan anagu iibsanayna waa joogtay wadanka oo waa nabad qabtay waa Soomaaliya marka waxay samaystay iyadii iyo dad aan u kaalinaya xoog ku haysta guriga marka waxay sameeyeen dacwadii haddaanu furay wallahi dacwad jaban buu nin nagu xukumay oo gurigii buu naga xukumay dad xoog wax kaaga qaadaya dhulkuna waa iska ogtahay oo male xukuumadana allah ha saqiro dawladna adagna dhulka ma jiro marka
dee guriga xaqdarana la kaga qaaday hadda iminkaan wax la leeyahay wax la qaaday racfaankii gurigaas waxna la kaga qaaday waa gartay laaluush baana la kaga qaaday iyo qabyaalad iyo wax ilaahay aanu ogolayn waa gartay marka haddii racfaankii la furo ay nagu kalifto annagana bal ka waran oo idinkan laaluusha bixisaana laaluushbanaayahay laaluush inaad bixisaan xaqa yagii weeye ilaahay baana ilaahay ama masalada horta marka hore waxaan leeyahay dadkaas waxa xoog ku qaatay ha ogaadaan ilaah ka weyn baa jira maxkamadan adduunyo waxay tahay ma laha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ikhtataca xaqa kayri ninka ardan ninkii goosto dhul oo lahayn goosto oo taaka ku tilmaamay iska dhaaf guri dhinaca ka hadlaysa taaka goosto ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yidhi qiyaamaha todobada arla qoorta lagu duubayo cadaab ee qiyaamaha ninka wax dhaca asagii arrintaas dhibaysa waxaan leeyahay hadday i maqlayaan dadkaas war maxkamadahan iyo dowladahan iyo waxaa jira wax ka weyn baa jira maxkamad weynaa jirta qiyaamaha oo yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ah oo dadka dhan ilahay xaqa hortiisa la istaagayo ninka xaqiisa looga qaadayo marka waxaan leeyahay ilahay ka cabsada ka tanaasula xaqin aad leedi haddaa waxa aad lahayn ilahay subxana wa tacaala ogaada ka cabsado maxkamad waxay nii saxiixdo nii siisay waxaad leedihiin ma aha ogaada qoladan kalen waxaan leeyahay iyagana oo dacwadu guri ku dacwoonayo waxaan leeyahay xaqiina waa raadsan kartaan ama masalada laaluushkana laaluushna waa bixin kartaa xataa laaluushka shuruudaha oo laga istisnooday culamada ay ka reebeen waxaa kamid a qofka hadduu xaqiisa ku dhacsanayo wuxuu leeyahay hadduu ku bixinayo oo asaga xaq uu leeyahay way bannaan tahay culamada yidhahaan laakiin waxaad ogaataan idinkana dunuubta inta badan dadka dhulka laga haysto waxaan arkay way jamcinayaan dadka dhan ay jamcinayaan jamciska ka ilaaliya nin baa xaqni iga galay ninkaas qabiil ma laha qabiilku rab ha ahaado kii difaacana asagoo lamid yahay oo qabiilku nin ku difaaco laakiin in oo aad jamcisaan oo aad ama qabiil dhan aad tirahaan dhul naga qaatay ama reer dhan meel degan aad tirahaan intaan arkay iyagana carabkiina ilahay uga cabsadaan leeyahay waxaa dad ayaa kaa xaday dadkaas haddaad taqaanid ceyntooda waa taqaan haddaad aqaanin waaba la gartay laakiin marka dadkan qabiilkooda wax kaagama jiro nin shaksi wey walaa tazuru waasiratun wisra ukhra marka inta badan xaqa wuxuu ugu dhumaa meelaa lahayna laga raadiyaa dadaa maqaayadaha fadhiisanayo wuxuu ku leeyahay qabiil hebela gul naga dhacay war qabiil dhan ha qabsanin ninka haddaa magaciisa taqaan heer hebel doo yahay qabiilka ma aha inuu wax kaa dhacay marka taasna idinkana waan igu waaninaya kuwaasna ilaahay subxana wa tacaala xaqiina waa ka raadsan kartaan ilahay subxana wa taala xaqiina hanii soo celiy insha allah dhinaca kale hallow hallow halo hallow halo waa ku maqlaa wala sheekh waxbuu wadaa samaa maya tvga iska daa tvga iska daa telefoonka igala hadal istabigada tvga tvga iska gaab aniga telefoonka igala hadal okay magacaygu waa umurayaan walaa waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo sheekha hayo asaga kula hadlayo weydi okay sheekha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waan shaqeeyaa waxaan u shaqeeyaa qof aan islaam ahayn maxaa la yidhahdaa waxaan u kariyaa hilibka iyo doorada oo aan xalaal ahayn sida wadamadan la ogyahaba intooda badan ay soo gataan dadkan yurubiyanka haddii ilaah kuu roon yahay diinta islaamku ma ii banaynaysaa inaan u kariyo hilibkaas iyo dooradaas aan xalaash ahayn waa kari kartaa hadii adiga cunaynin anaga cuninta xaraasha waa naga reebay haddii waxay qamri iyo qansiir oo nusuus gaar ay kusoo arto ay ahayn waxaan kale waa sii kartaa insha allah dhib male waa u kari kartaa nacam dhinaca kale hallo calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu asaa kula hadlayo calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh waxaan ku weydiinayay hooyaday oo cad ah qof weyna waa ku maqlaa xoolaheeda oo england joogta say noqonaysaan waxba ka ogeyn ilmaha agoon bay dhahdaa loo diro laakiin wixii ka haraa anigoo gabadheedii ama cuni karaa xalaal miyi yaa mas-uulka ahayd aad ma hayo anaa haya qofka mas-uulka ka ah xaqan waa iska ilaalinaysaa wixii haddii aad ka waman kaana haniyan falyastacfif haddaa waxa haysatid waxaad u sadaqay wixii kalen hadhuu dhaxal u galay ilmo kale carruur kalen in dhalat sooma way dhinteen ilmihii oo dhan agoon adi kale yaa carruur ka joogto adig ma carruur kale ay kaa leedahay wiil kale oo yurub joogay marka dhaxal maalkeeda dhaxal u gali doonaa marka maalkeeda waxay xaq u leedahay hooyada in laga sadaqeeyo sulus 3 meel haddii hal meel loo dhigo
in allaha tasadaqu calaa thuluthi amwaalikum nabiga yidhi calayhi salatu wasalaam qof kasta maalkiisa wuxuu xaq u leeyahay inuu 3 meel haddii loo dhigo hal meel uu sadaqaysan karo marka wix hal meel ah maalkeeda haysato hal meel waxaa haddii 1,000 haysato 900 haysato 3,000 kaliya sadaqada 3,000 ka badan ma sadaqayn karto maxaa yeelay dadka dhaxalka hadhow darar dhib uu keeni kartaa wax ka heli lahaa in caruurteedii wax uu tagi lahayd waxooda bixin karta ilaa haddii iga raalli ka yihin maahan marka adigan oo haysid faltaakul bilmacruuf haddii aad wax haysanin wax macquul ka cun oo adi xaqaaga camal ah adaa ogsoon haddii aad lacag leedahana iskaga daaba inaad kaalmaysid maahane waxbaa ka qaadan insha allah ilma agoon bay raalli ay sheegtaa markasta ilmaha agoonta walaabaday ka dhinteen marka ilmaha mooyaane wixii ka hara wax badan ma aha wixii ka hara wixii kara adiga maadaama haysid haysasho oo qaadan karta haddii wax haysan oo kuu sheeg haddaa baahi ku qabtid adig waxba ma haystaba iyadaan baan waxeedaan baan la cunaa khalaas markaas waad ka isticmaali kartaa insha allah waa ka isticmaali kartaa dhinaca kale halo ha sheekh suula iyo gudbi asaga kula hadlayo ha sheekh salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ma fiican tahay alxamdulilah ha sheekh miil hadlooyo be asaga kula hadlayo tv-ga iska daa sheekho waxaan ku wareysanaa sheekh suuley ha waxaan ku wareysanaa maxaa la dhahaa isag waxaan ku wareysan ha tv-ga iska daa tv-ga iska daa ha sheekh suuley waxaan ku wareysanaa ha salaada oo xajka oo maka iyo xajka iyo cumrada salaatu sunnada cumrada iyo xajka le maa loo tukanaa ama maalin kasta tukanaysaa marka cimrada joogtida marka cimrada joog iyo xajka joog markii xaj iyo cimro la qabo oo xajka cimrada oo sugan yihiin ma adoo banaanka joogta maa ku tukanaysaa salaad markastaa tukanaysaa salaada haddaa ula jeedid su-aashaada ma fahmin haddaa ula jeedid ani salaada su-aasheeda waxaa waan kuu sheega ani hadda London aan joogaa ha waxaan rabaa markii oo xajka iyo cumrada markii la joogo le ma salaad sunnada la tukan karaa ama markasta waa iska tukanee markasta waa tukay sunnada xajku ma xirno xajku ma xirno ma salaad xaj u xirane maya sunnada aa sheegaysa hadday tahay sunnada mutlaqa duhurka sunna uu leeyahay casrka sunna uu leeyahay taas ma ahan waxaan sheegaa xajka iyo cumrada markay tahay xajka iyo cumrada markaa tahayna ma fahmin sunno gaar ah oo tukanaa ma jirto waxaa ujeedaa labada rakac oo dawaafka ula jeedaa adaa waxaad tiri adoo oo cumro aad joogtida waxaad ku sheegtay ninkii oo joogo waxaad tiri cumrada iyo xajka qofkii banaanka joogo waa tukan karaa cumro iyo xaj laba rakac sunna uu tukan karaa ma fahmin ma fahmin labada rakaca maxay tahay oo sunnada la tukanayo xajka su-aashaan weli fahmin salaat alxaj oo xajka oo loo xiranayo salaat xaj laba rakaca ixraamka labada rakac oo ixraamka ma ujeedaa markii ixraamka la xiranayo maya ayoo cimraan la joogin marka banaanka marka adig ana ingiriiskaan ba jooga maalan haye ma tukan karaa anoo ingiriiska jooga markaan sunnooyinka tukado salaad oo xajka iyo cumrada ma u tukan karaa laba rakaca sunne waqti kastaad laakiin salaad xaj iyo cumr lahayn ma jirto haye maxaan dhaho ma sunno le ma iska tukanaa sunno le tukanaysaa ha inta banaanka joogto cumrada xaj ma u niyeysanaa maya cimri xaj ma u niyeysanaysaa ilaaha u niyeysanaysaa ilaaha u niyeysanaa maho ha bas sunnooyinka caadiga leen tukanaa sunnooyinka caadiga tukanaysaa insha allah waa ku salaamay shukran waa mahadsantahay baarak allah fiik hay dhinaca kale hawo khayran ku rajay baarak allah fiik hay nacam halo halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أبو سلامة بارك الله فيك شيخ هاي تي في اسكا دا تلف waxaan maleeyahay su-aashaas ugu dambeysay gabadhaas waa ka go-ay marka xalaqada waxaan leeyahay uu zinadan kusoo gabagabeynaya nabiga calayhi salaatu salaam waxaa ka sugnaaday xadiis uu noo sheegay uu dhahaya in النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المهاجرين يوما مالين أيو دتك مهاجرين تقصوا بح النبي عليه الصلاة والسلام وعور يا معشر المهاجرين مهاجرين تقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعور قمص إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تتركوا وحوير شن هدي أن إله يقوم امتحان الريموت وحان إلهي كمان يقولوا إن أرنتاس هاليشان هير مهاجرين إذيك عصريين يدعضوا أيان إلهي كمان قال له وحكمته شنطة وحوير ولم تظهر فاحش قوم أما مقالوا oo faaxishada iska faaftay zinada oo dadka ay arin caadi ka dhigteen caadi weey oo gabar iyo wiil inay isshumiyaan isdhunkoodaan iyo inay istaataabtaan iyo caadi weey ama casri weey iyo model la gaari iyo waxaas hadda waxyaabaha socdo weey haddayba dhacdo nabiga calayhi salaatu salaam fi qowmin qad
xataa yuclinuu biha fi lifshaai fiihim ataacuun yiri cudur ayaa ilahay kusoo salladaa. cudurkaas marka ilahay subxana laga hayo ummaddan waa inay iska kaashataa si oo zinadaas loogu hortegi lahaa. ilahay subxana wa tacala waxaan ka baryay waxaan sheegay hadday sax yihiin tawfiiq ilahay ka ahaatay, haddaan qaldanay nafteyda iyo shaydaan. subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.